taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Soomaaliland Saraakiil Guuta Cabdullaahi Fadl Iimaan oo garab fadhiyan taliye ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo afayeenka ciidanka booliska gaashaan la sare Faysal Xiis ayaa waxa ay shaaciyeen ciidanka booliska Soomaaliland qaybihiisa kala duwan u heegan buuxa u galay sidii uu sugu lahaa xilliga ololaha doorashada ee fooda inagu soo fool kale ciidamada tiro badan oo si xoog loo qalabeeyay oo lagu soo bandhigay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa ay taliska boolisku sheegeen in ciidamadan ay heegan u yihiin sidii uu sugu lahaa amaanka doorashada xilliga ololaha lagu jiro ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Saraakiil Guuta Cabdullaahi Fadl Iimaan waxaana faahfaahin ka bixiyay qaabka ciidankan ay u hawlgali doonaan iyo qaybaha ka kala hawlgali doonaan isagoo bulshadana fariin u diray uguna baaqay in la shaqeeyaan ciidamada booliska dhammaan ciidanka booliska waxay ku jiraan heegan buuxa oo ugu diyaar garoobayaan sida ka muuqata kulankan saaka sugidda ammaanka doorashada iyagoo kaashanaya ciidamada kale ee qalabka sida oo gacan buuxda naga siiya howlaha nabadgelyada sida doorashooyinka iyo dhammaan nabadgelyada kale ee aan u xilsaaranahay waanan u mahad celinayaa taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo ciidamadoodaba ee had iyo jeer gacanta buuxda naga siiya howlaha nabadgelyada waxaan maanta halkan fariin uga dirayaa asxaabta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo weli aan la gaarin waqtigii ololaha doorashada waxaa jira gaadiid ama calaamado astaamaha xisbiyada sita ee suuqyada magaalooyinka wareegaya oo ay qaarkood dad qaylinaya saaran yihiin sidaa daraadeed lama ogola iyadoo weli aan la gaarin waqtiga ololaha gaadiidkaas sidii ay komishinka doorashooyinka qaranku horeba ay u sheegeen xeerka doorashada tilmaamayo waxaan uga digaynaa taageerayaasha asxaabta inay iska ilaaliyaan arrintaas ciddii lagu qabtana sharciga ayaa la marin doonaa marka waqtiga ololaha doorashada la gaadho xisbi waliba maalin ayuu yeelan doonaa ololaha sida komishinka doorashooyinka qaranku cadeeyay waa in xisbi walibana maalinta kaltankiisa ku ekaado ololihiisu waxaan u sheegayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso habsami socodka doorashada inay tallaabo adag ka qaadi doonaan ciidanka booliska oo kaashanaya ciidamada kale ee qalabka sida intaas waxaan ku darayaa oo ku celcelinayaa oo aan uga sheegayaa ciidanka booliisku wuxuu xil saaran yahay amniga gudaha ee qaranka iyo ilaalinta shacabka reer Soomaaliland ciddii xadgudub samaysa iyadoon qofnaan ciidanka booliiska xadgudub ku sameeyeen waxa loo baahan yahay in sharciga la ilaaliyo sharciga la dhowro nidaamka doorashada ee nabadgelyada la ilaaliyo sidoo kale waxaan dhammaan ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada dalka iyo degmooyinka faraya inay galaan heegan buuxa iyo feejignaan dheeraada sidoo kale waxaan ku boorinayaa taliyaasha qaybaha dhammaan ee gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay adkeeyaan kaantaroorada iyo gaafureega iyo waxyaalaha ay ciidanka booliska ay shaqadoodu tahay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Saraakiil Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo afayeenka ciidanka booliska Faysal Xiis waxaana iyaguna bulshada ugu baaqeen in ciidanka booliska garab istaagaan dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu tababar u soo xiray ciidamo kala duwan oo kuwa birmadka oo muddooyinkii ugu dambeeyay uga socday xarunta ciidanka birmadka kuwaas oo loogu talagalay inay ka hawlgalaan xilliga ololaha doorashada sida loo sugi lahaa ammaanka Khadar Macalin Deeq Bulsho TV Hargeysa